gudoomiyaha xisbiga macaaridka ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka jawaabay hadalkii maalnimadii shalay ka soo yeedhay safiirka dalka Djibouti u fadhiya Somaliland waxaanu Faysal Cali Waraabe uu jawaabtaasi ka yidhi maruu maanta ka hadlayay qalin jabinta dufcadda sideedaad ee jaamacadda Alfa ee magaalada Hargeysa. marka hore inaan hambaliyeeyo dhalinyaro shacabka reer Somaliland oo maalweeto qoratan dawladdan aan jaarkana yar taabtay runta yar sheegay aad igu hiiliyeen magaalada difaaca qaranka marka hore waxaan jawaab ku kaliyay saa oran jiray laakiin waxaan helay mujtamac badan oo i hiiliyay maga waa inuu qarankeena waxa dhaxdeena waa inuu hoos u dhignaa waa inaynu difaaca qaranka ku midownaa aad iyo aad baan u hambaliyanayaa dhalinyartii social media aad iga daafacday deewaana ay sheegtay anigu falku ima qabto waliga salaam kuma bixin moogtay Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV